بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan idinku aqrinayaa warmurtiyeedkii ka soo baxay muxuu ahaa guddigii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo u magacaabay in ay xal waara ka keenaan arrimihii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidii loo soo celin lahaa amniga magaalada Muqdisho loogana saari lahaa saameyntii ka dhalatay marka qodobadii guddigu uu xalka ku soo aruuriyay ra'iisul wasaaruhuna la qaatay ayaan doonayaa halkan inaan idinkaga aqriyo qodobka koowaad qodobada ay soo saareen guddigu waxa uu leeyahay kow in dhammaan ciidamada ku yimid xasaradihii ka dhacay magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobihii ay ka yimaadeen lagana saaro magaalada muddo 48 saac gudahooda oo ka bilaabanaysa 5 bisha shanaad 2021 oo ah maanta qodobka labaad in aanay xuquuqda ciidamadaas wax saameyn ah ku yeelanin sida mushaarka darajooyinka iyo xilalka loona raacan wax ku saabsan qalalaasii ka dhacay magaalada Muqdisho qodobka saddexaad in si gooni ah loo xalliyo saraakiisha leh duruufaha gaarka ah sida darajooyinka mushaaraadka iyo xuquuqda kale ee ciidan afar in kalsooni laga dhex abuuro hay-adaha amniga iyo siyaasiyiinta qaba tabashooyinka amni shan in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu wareegto soo saaro uu ku farayo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee in aanay ku milmin arrimaha siyaasadda b in aanay bixin amaro ay ka dhalan karto khalalaase amni iyo mid siyaasadeed lix in la magacaabo guddi khubaro ah ciidan ah oo kala taliya ra'iisul wasaaraha dib u habaynta ciidamada qaranka toddobo in aan ciidamada qalabka sida loo adeegsan arrimo siyaasadeed faragelinna lagu samayn sideed in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaadda iyo nacaybka sagaal in la soo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho lana soo daayo dadkii loo xiray toban fulinta qorshahan waxaa mas'uul ka ah ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaan dib dhacayn IBS Bank intaas oo qoramahan adeegyada aad ka helayso IBS Bank imanka waxay soo kordhiyeen Dalmar Wall Elite Mastercard haddaad Aasiya joogtay Asia aad u socdaasho ama Yurub eeriyadeedii Europe aad dhex marayso ama America aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin Dalmar Wall Elite Mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kale u doono IBS Bank Dalmar Elite Mastercard waxa ku isticmaali kartaa 154 wadan iyo in ka badan 450 magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta VIP lounge aad ku helaysaan si free ah Dalmar Elite Mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududeyn doonaa ganacsigaaga goob kasta ka joogta dunida waxa kale oo aad ka heli kartaa IBS Bank Dalmar Mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona discount 20% waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah IBS Bank kulmiye Mastercard waxa loogu talagalay ardayda waxbarata kaafiya Mastercard waxa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexe ah adeega 3D Secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxa kale oo IBS Bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank IBS Bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda